waxaan rabaa inaan in yar idinla socodsiiyo shir dhex maray beelaha Garxajis iyo Habar Awal oo lagaga wada hadlayay sidii loo soo afjari lahaa arrintan gacan libaax iyo dhalinyarada buuraha galay doorka xisbiga wadani iyo siyaasiyiintu ku leeyihiin arrinta jabhadda iyo doorka ay qurba joogtu sida ay u kicinayaan barnaamijkan iyo cidda wadaaba inayna ahayn dadka degan waddankii ay yihiin qurba joogta miidiyaha khaasatan taageeraha xisbiyada mucaaridka ama dhalinyarada ka baxsan waddanka ay warbaahinta oo aad u boonbooninaya barnaamijkan rabana dhammaantood inuu dagaalku bilaabmo arrintaasaan rabaa inaan yara dul istaagay subscribe flow iyo share meel fog gaadsii muuqaalka pagekeena flow soo dheer dhigaal media okay aan ku bilaabay shir baa dhex maray beelaha Habar Awal iyo Garxajis salaadiintooda waxaa la leeyahay waxa shirkaasi gudoominayay Sultaan Xasan oo ah sultaanka guud ee beelaha Habar Awal waxaa sidoo kale ku jiray Sultaan Cabdi Gude oo ah gudoomiyaha guddida Garxajis ee dhinaca mucaaridka sidoo kale waxaa jiray salaadiin kale oo ka qayb gashay oo labada beelooduna shirkan markaasi inta badan dadka joogay ama salaadiinta joogtay waa salaadiin mucaarid ku ah madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadda xisbiga kulmiye Sultaan Xasan oo kale way isqabteen Cabdi Gude waa kii xidhay iyo salaadiin kale si kastaba ha ahaatee waxaan doonayaa wixii ka soo baxay inaan media laba idinkala socodsiiyo waxaa ka soo baxay in horta shayga la yiraahdo nabadda inaan gorgortan la gelin oo laga wada hadlin oo wixii nabadda waxyeelaya meel looga soo wada jeedsado midhaasi waa qodob la saxay qodobka labaad ee ka soo baxay waxa weeye sidii loo soo abjari lahaa dhalinyaradan buurta kortay ee ku sii qulqulaysa halkaasi iyo sidii loo soo afjari lahaa arrin odayeed oo waawaan wada jirana looga qayb qaadan lahaa saddexaad ee ka soo baxday waxa weeye xaaladaha waddanka ee cakiran ee doorashooyinkan la galay iyo sidii loo dhammayn lahaa hadday tahay mucaarid iyo muxaafidba arrimahaasi ayaa ka soo baxay mid waa mida ee horta in nabadda aan gorgortan la gelin aan ma aragtay laga wada hadlin oo meel looga soo wada jeedso waa wax aad u wanaagsan arrintaana waan ku ammaanana Somaliland waxay mar walba kaga duwan tahay dadyowga kale iyo wadamada kale markay arrimahan oo kala dhacaan waxay ku dhamaystaan waan wada hadal waayo arrintii laasaanood halkaa maysan gaadheen haddii maalintii halka garaadada hubka ka soo qaateen barnaamij wada hadal lagu eegi lahaa sidoo kale maantana odayada reer Somaliland hadday tahay salaadiin ganacsato siyaasiyiin waa in barnaamij sidan oo kale laga wada hadlaa meel looga soo wada jeedsado okay talabaadna waxa weeye dhalinyaradanka horta midowga waxaad moodaa inay axsaabtii mucaaridka iyo waxyaabahaas nabadda hala ilaaliyo dhinac iska dhigayaan arrintan aanu wax ka jira ma jiro xisbiga mucaaridka khaasatan wadani uu kula socdaa barnaamijkan dhalinyarana iskama baxdo bilaa hadaf haddii aan la daba joogin oo aanu siyaasi daba socon una ayna hadaf lahayn oon lacag lala daba socon wax alli iyo wax ka jira ma jiro waanay ka warhayaan waanay kula socdaan waxayna doonayaan in marka buuqyaro dhasho la isu tanaasulo hadhowna sidoodii ay yiraahdaan dadka dalka iyo dadkan u tanaasulay qurba joogta Somaliland inkastoo ay Somaliland horumar badan gaarsiiyaan haddana xilliyadan oo kale waxay u kala saftaan qaab qabiilaysan waxayna sameeyaan inay iyagu boonbooninayaan dhowr dhinac baan ka eegaya dadka qurba joogta ee xisbiga wadani ay ka mid yihiin tusaale ahaan Ismaan Cumar Dool Liibaan Alcadaala dhalinyarada Turkiga joogtay miidiyaha waxaas oo dhan waxay aad u qabanqaabinayaan inuu dagaal dhaco waxay leeyihiin ciidagalo horgalaatihiin waxay isticmaalayaan ereyadii ay isticmaalayeen huwantu horgalo kale qalasoo kale waxyaabo cajiiba xataa dadka Somaliland waa dad erey bixinta lagaga dayan jiray may ahayn dad iyagu erey bixinta soo dhoofista
waxaad moodaa qolooyinka mucaaridku inay markay muxaafidka caayayaan ay ku yidhaahdaan heego oo ay ka soo dhoofiyeen cabdi ilay kooxdiisii oo heege la odhan jiray maantana inay kuwoogii ay berigii hore jindagaagii ku odhan jireen maanta inay ku yidhaahdaan horgal oo laga soo dhoofiyey dhinaca huwanta waa ku nacasnimo inay bixinta adigu la kaalay si kastaba haatee dadka dhaqaalaha ku bixinaya dhaqaala ururin sameynaya guruubada maalin walba sidaa isaga qaylinaya aynu dagaalano aynu isxorayno aynu kanayno leh waa dadka qurba joogta maaha dalka dadka jooga waayo qofka qurba jooga caruurtiisii dugsiye u dhigtaan meelo qurux badan buu degan yahay waxa weeyaan nolol buu haystaa dagaalka isagu ma gelayo ninka dagaalka gelaya ee ku dhimanaya ee ku gaajoonaya ee ciidanka qaranka ka hor imanaya waa ninka wadanka jooga waa inaad caqli ku dartaa ood waxaa ka kortaa dhanka miidiyuhu waa mid wadanka ah oo waxaad moodaa marka aad tahay warbaahinta waxyaabaha wadankaaga ku xun lama soo gudbiyo ama lama buunbuuniyo warbaahinta caalamka waxyaabaha noocan oo kale ay wadankooga waxay ka istaagaan dhan positive waayo wadaniyada shaqaysa laakiin waxaad moodaa warbaahinteenu inay sii buunbuuninayaanba dhibaatadii dhanka kale warbaahin waxaa jirta dhalinyaro turkiga iyo yurub iyo meelaha u badan oo aad moodaba inay buunbuuninayaan dagaalka bakayloo kale teera gruub noocaas la socda ka kacay aynu ishoraynay hayaay waxay kala garan lahayiin marka haddaba yaa lala dagaalamaya xataa sida la isugu goodinay waxaad moodaa maanta qayb kale oo ka mid inay soo baxday oo leh annagu haddaanu ciise muusanahay ama habarawal yaa loo hanjabayaa su-aasha meesha taala waxa weye dadkan markaa buurta galayay la dagaalamayaan ma waxay la dagaalamayaan qarannimada somalilan sida nimankaa huwantee warkooga cadaystay yidhi anigu somalilan wax la yidhaha ma naqaano waa qodob ma waxay la dagaalamayaan wax la yidhaahdo wadaniyad oo waxay ka xoreynayaan muusabixii wadanka waxa la leeyahay doorashooyinkii baa janjeersay markaa sistamka muusabixii xisbiga kulmiye oon reer ahayn waa laba ta saddexaadna waxa weye ma waxay la dagaalamayaan reer la yidhaahdo tusaalahaan habarawal oo haystaa dekedii oo haystaa suuqyadii oo haystaa wasaaradihii wixii oo haystaa madaxweynihii oo nidaam haysta oo iyagu nool oo barwaaqooba dowlad ku noola ayaa meeshii laga fujinaya miyaa ma heege wax la yidhaayo ma garanayno dee heege lafteedu waxay tahay heege dadkan ku yidhaahdaa sheegi doona ma in yaroo systemkan la noolba oo ka faa'iidaysanaysa ma xisbiba ma waxa weeye waxaan la yidhaahdo reerba sacad muuse maxabarawalba ilaa imika ma garanno haddaba waxa weye su-aashu yaa lala dagaalamaya markaad adduunka wax la dagaalamayso waa inaad ahdaaf lahaato ma xukuumaddan baad ridaysaa mise reer baad la dagaalamaysaa haddaad xukuumadda iyo nidaamkeega ridayso gacalibaax ma taalo waxay taalaa gacalibaax wax samkamayn kartaa waxa weeye inaad saldhigga go'da weyn qabsato go'da yar qabsato inaad meelahaasi kadib berbera timaado aad wadooyin xidhxidho fawdaa la yidhaahdaa orodo hargeysa tag adoo reerkiina kicin hub iyo ciidan inta saa u qaado madaxtooyada qabso maxay naga dhibi gebigiisa muuse saa ula soo baxo cirkaagii haddaad reer la dagaalamasana dee waa meel kale laakiin haddii la yidhaahdo somalilan waa mid haddii kalena la yidhaahna isaaq dee waa dad walaalaa habar jecliyo arab iyo habarawal iyo isma kala xigaan garaxdiis waa dad walaalaa haddaad bal markaa adigu horta wixii aad la dagaalamayso soo sheeg ma commissionkaad la dagaalamaysaa ma nidaam maxkamadahaad la dagaalamaysaa bal waxaan horta caddee ilayn ma jirto beel somalilan ka midoo la gumaysto annagu maanaan arag mana dhici karta ceeb bay ku tahay ereyada dadka isticmaala aad iyo aad baan uga xaal siinayaa lama isticmaali karo waa doqoniimo si kastaba haatee bal aduu horta soo caddee yaan dadka walaalaha la isku horkeenin yaan la isku xoqin qabaa'ilka waxyaabaha noocaas oo kale dadka walaalaha ehelkii qaraabada ee wada dhashay meel ka soo wada jeeda ee shalayna soo wada dagaalamay meel wada jeeda yaan qurba joogta warbaahinta iyo dadka waxaa boonbooninaya waxaan leeyahay
war ka daaya baynu leenahay. haddaba kiliibkan meel fog gaarsiiya, falowda iyo sheerta iyo subscribe-tu waa halkiina. nacabka Somaliland ha jabo, Somaliland ha guulaysato. aad baan idiin salaamaya.